مرصده حس شق إذا مرة قوم دو حس شق إذا مرة قال جعله حس شق إذا مرة حوالله حس شق إذا مرة واحد لهاي قبيلة هوي اسكور كينا فرصة يو كرسي سياسات كدحركي أنا وحنا قدومياش دقمين قبل كبنادر هوي ودما وضقات حوالله ما قادرين أو مرصده ما قدومي دقم لهين أو أبقى المان لهين أو هبرقد المان لهين وحنا الهوية هاي قوم دبي قال جعلان هاي دقمين قبل كبنادر بيمال الرحوين مجرتين دور كان لقى صور لوضي دقمين كلاسكسينوي ولا ليه يدين الأشياء وحكسيان لها. waxaan rabaa inaan sheeno ku weydiiyo maadaama aad noo timid oo fursadana aan uga faa'iideysano bal aragtida iyo waxa aad ka qabtid waxa jirta madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar ayuu dalkan maaragtay madaxweyne ka ahaa marka uu soo laabtay dadkan waxay qabeen rajo aad uga weyn intii hore waxay rajeynayeen maadaama uu horena maaragtay shaqo badan u qabtay oo wax ka bartay mucaarad soo noqday wax ka bartay hadda marka waxaas uu bartay inuu dhaqan gelin doono laakiin cabashada beelaha ayaa aad maaragtay isu soo taraayo xitaa sanad ma joogo maxay kula tahay waxay la tahay waa maasan tahay walaalo soo dhawo waxaas hadda wax ka saayo oo beelaha hawiye la yiraahdo beelweynta hawiye aan beelaha hawiye kala qoqobayo ee dhahaya xasan sheekh idin ma rabo murasado xasan sheekh idin ma rabo goon dhow xasan sheekh idin ma rabo gal jecel xasan sheekh idin ma rabo xawaallo xasan sheekh idin ma rabo waxa dhahayo ee qabiilada hawiye iska horkeenaya ee fursad iyo kursi siyaasadeed ka dhax arkay ninkii wadakan 5 sano ee la soo dhaaf ku dheeli jiray ee madaxweynuhu ka soo noqday lalahay maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo kooxdiisi waxay ka dhax arkeen wanaaga iyo dib u xoreynta ee shabaabka la ceyrsanaaye iyo xafiisadii ay dadku ku dulmi jireen wanaaga ugu dambeeyay madaxweyne xasan sheekh iyo taliska sirdoonka mahad salaad iyo dadka kuraastoodii dadkii ugu dambeeyay waxa wanaagsan oo ay qabanayaan yaa dhibaayo jirka cuncunaya marka qabiiladii waxay leeyihiin hiraab ayaa isku soo koobay kuraasti hawiyihiina kala seenta ugu taaliin been miya laakiin taas been iyo dulmi iyo qaacinimo waaye wax ka jirana male waxaan ku sheegaa dadka hawiye ee dadkan maxaan ku yiraahdaa koonfurta bartamaha Soomaaliya dagaa aniga waa ka dhashay Hirshabeelle ka soo jeeda Banaadir ka soo jeeda koonfuran ka soo jeeda hawiye aragtida ay qabanaan maanta raba inuu ummadda Soomaaliyeed u sheego waxaas beenta ee nimankii xukunka wadanka awoodda wadanka looga adkaada ay faafinayaan been waa habargidir waxay qaadato gaal jecel qaatay xawaala qaatay murasada qaatay baadacada qaatay jijaala qaatay gugundhaba qaatay abgaal qaatay abgaal wuxuu qaatay anaga dhina wada qaadan intay kala jireen abgaal iyo habargidir walaalo ee wixii la siiyo hawiyaha kala waa qaatay beenta iyo dulmiga iyo dabka aad walaaqaysiin oo aad leedihiin hawiyaha kale idima baana seentaad ugu taalin kuraas idin lama sii adik maxaad na tarteen hawiye maxaad tarteen Soomaaliye maxaad tarteen habeen madow dadka qala jirteen oo guriga u dhici jirteen marka aad leedahay wixii maaragtay habargidir ay haysato gaal jecelna waa haystaa xawaadlana sidaas oo ku haystaa murusadana ku haystaa murusada inay qatan yihiin oo wixii ay lahaayeen maaragtay laga qaatay aaminsan yihiin xawaadle waa kana shiraayay hadda oo maaragtay waxba naga maqan lahaa see u yihiin qof wuxuu qaatay waxa aan murusada curudka hawiye waaye geedkii hawiyaha oo isku tagayay waaye maxaa loo qatiyay sharfayiin lama qatinin maxaan ku yiraahdaa adiga murasada ma tahay in la qatiisad ku ogtahay ayaga yaaba qaylinaayo leh ma qaylinaa waxa qaylinaa CBB di farmaajo u shaqeyn jirto waxa qaylinaa murasada wadanka ra'iisul wasaare ka soo noqday waa la shaqeey garbooda la istaagay kursiga ra'iisul wasaarenimo macna u yeeleen waa ogtahay maxaan ku yiraahdaa markii shal la shaqeynaa hawiyaha kala xumeeyeen miya murasada wax ay haystaan in wax looga daro way mudiyiin laakiin tiimkii wadankan looga adkaada fursad ka dhax arkay inay murasado inta ka soo galaan inta xawaal inta ka soo galaan war abgaal iyo habargidir waxay qaataan hawiyaha kala waa qaatay beenta dulmiga iyo qobxiga dadka kala taga waxa hadda diidan tahay in ay jiraan maaragtay dad oo hal ama laba beel ah
in maaragtay xilalkii ugu badnaa muddooyinkan bilahan in aad loogu taxay ma diidan tahay wax lagu taxay ma jiraan wax lagu taxay ma jiraan aniga aragtida aan waxa waa hadii lagu taxanay way mudiin walaalahay ma nala dhashay mariixan ma fiiri ma habargidi abgaal de kuraasta qaataan soo hawi ma gaal jecel ee murusada iyo xawaalada iyo gogondhawe soo hawi ma intay kala jiraan aniga hadaan qaatay dad walaalkay qaatay isku mid waa marka hawiyadan wixiisi hal qolaha cunta maal lahay ama laba qolaha cunta cunta sheegaysaa kuraasta laba isku darsadaan waa dad walaalayo ila dhasho ani ma aqbalay in fursad laga dhax fiiriyo oo hawiya la iska hor keeno oo kursiga madaxweynimada ee Soomaaliya hawi inuu ku fadhiistaa la dirooya ma aha heblo wax ma haysto iyo balaha wax ma haysto hawi ka tirsama hawiyaha la isku diroohaya si ay daarood ama Soomaali kale ay biri u dhisaan been waaye habargidi abgaal waxay haystaan anaga waa haysana yaa dulmigaas ba sheegin laakiin shalay waxa ku qeylineysay beeshaada gaal jecel inay qatan tahay in la dulmiyay Hirshabelle inay ku dulman tahay gobolka Banaadir ku dulman tahay sidaas si lamid ah maaragtay beelahan kalena u qeylinayaan u sheeganayaan inay dulman yihiin ka dhaxay xasantahay saas ma aha aniga shalay markaan inta iimaanay Italy media iimaanay oo aan hadlay oo aan lahay walaalay gaal jecel waa qatayn aan lahaa siiqada aan u dhahay iyo wax hadal oo teamkii wadankan xukunka looga adkaa ay karkaranayeen shaqo isku male aniga waxaan lahayd gudoomiyaasha degmooyin gobolka Banaadir hawiyo dhan wada qaatay xawaad lama qaadanin oo mursaduna gudoomiye degmo lahayn oo abgaal maan lahayn oo habargidir maan lahayn waxaan iri hawiya ahay gogondhawe iyo gaal jeclaan lahay degmooyin gobolka Banaadir ee Biimaal iyo Raxweyn iyo Majarteen duurkan laga soo la wadi degmooyinka la iskasiino walaalihiin idin dhasho wax ka siiyaan laha ee gaal jecel iyo gogondhawe kuraasta kale dawladda xilay haystaan waa looga daraa laakiin aniga wax ka hadlay waxay tahay habargidi abgaal hadda mid CBB oo dhaaya arkay Hiraab Republic Jamhuuriyadda Hiraab dhaaya arkay waxaas aniga dadka hawiyahana waa wareyso doontaa waan arki doontaa bulshadana igama dhaga yirid igama indha yirid habargidi abgaal waxay qaateen annaga dhan waa wada qaadan waxaas dana siyaasada way iyo maxaan ku leeyahay hawiyaha in la kala dhantaale xasan sheekh madaxweyne Soomaaliyeed oo nabadoon ah waray xasan sheekh maanta nin aad waxa rabta ka sheegi karto dimuqraadiyadda aaminsan waa freedom of speech aaminsan waa farmaajo dawladda ku soo noqon lahayd ama kolomida wadanka iman lahayd guriyaha habeenka masas camal aan nolol soo daadan lahayd waana lama arki lahayn warniyo ilaahay laga baqa xasan sheekh la shaqeey xilliga dhaliil lahayn ma bal joog xasan sheekh